meesha waxaa ka dhacay xasuuq shacbi ogow haddee madaxweyne Muuse Biixi shalay dad la sidoo kale si nabad ah oo u banaan baxay oo lahaa doorashaan rabnaa ayuu Hargeysa ku leynay markaas waxa tiraahdaa la yiri nin hooyadii dilay ayadii har uma jiido marka dadkaasi dib weyn ayaa muddo haysatay 15 sano ayaa dadka oo labeentoodii la dilay cid baana sheeganaysa inay mas'uul ka tahay iyadu dhulkaasi ay kala gareynayso oo anaga xukunno dawladka waxa maanta dadkaas lagu leynayaa calankii buluuga ah bay kor u sideen oo ilaahay anagu Soomaali baan nahay Soomaali ma rabnaa dilka iyo dhibtan hana la ka daayo si peaceful u mudaharaadayeen nabada xabad baa la dhaciya brown baa la waxaan bogaadinayaa dad badan oo reer Soomaaliland oo isma kamid yihiin oo culimo kamid tahay oo gudoomiyaha xisbiga oo mataqaana maxaa la yiraahdaa Faisal maya oo kamid yahay Soomaaliland oo kamid yahay ay arrinta ka hadleen kana xumaadeen dhibta dadka lagu hayo arrinta marka Soomaaliya sanaga yacayn anigu fikirka ka aaminsanahay waxa weeye dadkaasi masiirkooda ayaa u madax bannaan in ayaga waxa ay doonaan hadday doonaan dawlad goboleed gaar ha noqdaan hadday rabaan cid doonaan ku biiraan hadday doonaan yani ha noqdaan dawladda dhexe hoos yimaadaan dadkaasi in ayaga masiirkooda loo daayo oo la yiraahdo kaleemkan hadda isku haysadkaahoo ay ku dhibtoodeen aad ugu dhibtoodeen in yani ayaga u madax bannaan in masiirkooda la weydiiyo ayaguna ka tashada xaq bayna u leeyihiin in maanta lagu khasbi karo aniga ku dawladeynaya anaa ku xukumaya haddii kal xabad baan yani dawladda ka gelinaya dee sax maaha aduu meeshu maanta u maraya iyo meesha la joogo waxaas waa ay dhamaatay marka dadkaasi dib baa gaartay aad xun waan cambaaraynaa wax hadda ka dhacayo lagu sameeynayo waxaan rajaynayaa in caqligu shaqeeyo dadkaasna loo ogolaado masiirkooda الله نحرسته علي خليف قلير قاتم مدحوينه ka ahaa xilligii 2014 maruu hadlayay wuxuu yiri marka la fiiriyo labada maamul ee wadaaga aan nahay Puntland iyo Somaliland ka qaatum ahaan inaan maamul noqono oo meel istaagno Somaliland baa noogu dhaw reer Puntland waxay rabaan inaan kamid ahaano waxba nooma ogola adiga waxaad leedahay dadkii hala madax baneeyo ma aaminsan tahay maamul madax bannaan oo adinkana shaqo idin ku lahayn Somaliland aan shaqo ku lahayn oo meel taagan inuu noqdo 100% dadkaasi in loo ogolaado masiirkooda oo hadda maamul goboleed ayagu ay leeyihiin ay samaystaan soo sanaaga yacayn 100% baan ugu taageeraya mideeda kale Ali Khaliif Puntland ma ahayn cidii ku weerartay Taleex cidii ku weerartay meesha la yiraahdo Saxdheer cidii maalba eryenaysay oo god ku galaba ka saaraysay ma ahayn Puntland waxa ay Somaliland aan ogolayn inuu hadal ka yiraahdo aan u ogolaan jirinin in uu ka abuuro marna Puntland khaatimo kuma duulin ma fahamtay ogolaanshaha ah khaatimo ma matasha shacbiga Soomaaliya yacayn waa ishii kale markaa jiray laakiin hadda meesha ay marayso ya hadii marka cid difaacaysa aysan jirin dadkan qolana ay dhibaataynayso qolo kale difaacayso oo ka celinayso oranayso dadkaani dhibta lagu hayaahay صح ما هي joogsataa deesan jirinin oo u gurmanaysa dabcan waa khasab in la yiraahdo dadka masiirkooda ha loo ogolaado masiirkooda ayaguna ha tashadaan hadda iyagu saa doonayaan weey ana waxaan leeyahay iyaga hal la weydiiyo bari aftaha laga qaado meesha doonaan ha loo ogolaado inay aadaan deegaanadaas hadda laascaan oo kale Soomaaliya sanaag marka hore gacan ku haynteeda Puntland waxa iska lahaa maamulka Puntland hadda gacantiina way ka baxday maxay tahay sababta وانا ترستان ومامولada Puntland ay awood ku leedahay intaas oo gobolaan mas'uul ka ahay waa sax dabcan waxa weeye way jirtaa dul badan oo hadda Soomaaliya sanaag moogta kaliya ma laascaane dul badan oo Soomaaliya sanaag aynaho hadda yani ciidan ahaan iyo awood ahaan Puntland ay aad u joogta ayaa jira laakiin waa run eedaasna anigu hadda nin ka gabanaya maahi oo qaybo badan oo kamid ah ilaa laga soo bilaabo waxa la yiraahdaa ilaa waqtiga xataa Abdullahi Yusuf aadayay dawladda federaalka laga soo bilaabo ilaa cadde waa run waa soo durkayeen maalma meel bay imaanayeen ma fahamtay marka eedaasi yani waa mas'uuliyadeeda kulleeda waa la qaadanaya in wax laga gaban karo ma aha laakiin hadda waxa joogta waxa weeye Puntland Somaliland ma bahaba
ma fahamtay iyana hadda meesha ay marayaan dadkani waxay ila tahay ra'yi caamkoodu inuu badan yahay in ay dadkaasi masiirkooda loo madax banaaneeyo waana ku taageeraya arrintan anigu maamulka Puntland markii horena dhahayay ama deegaanadii haddaba qaar ka mid yihiin dad Soomaaliyada wada dhashan ay yihiin maamulna maanta ayaga ay yihiin oo dadkan banaanbaxay ay leeyihiin dhibaataan haysato maxaa looga baahan yahay door intee la egay ku leeyihiin horta arrintan marka la yiraahdo ama madaxweyne dani ama shacabkaba wallahi dadkaas horta waxa weeyaan in la difaaco waa muhiim ah haddaad sheeganayso in adigu aad xukunto dabcan naftooda iyo maalkooda iyo cirdagooda sharaftooda mas'uuliyad baa kala saaran marka dawladda markaa jirtaa waa inay difaacdaa dadka markii la dhibaateeyo oo la laayo xabadda la dhaco adna aad leedahay madaxweyne u ah dabcan waa inaad difaacdaa meesha way ku jirtaa soo ma laakiin su'aashaas hadda waxay u taallaa madaxda meesha hadda joogto oo Puntland in hadda la weydiiyo waaye dadkuna waxa ay ka rabaan dadka soo sanaaga iyo gaar ahaan dadka maanta la ascaana joogahay waxa ay ka rabaan rabitaanka waxa Puntland ka rabaan ayaa la rabaa inay sheegaan jawaabtana waxa laga rabaa maamulka markaa jiro hadda jooga madaxweyne Muuse Bixi Soomaaliland wuu hadlay wuxuuna hadalkiisa ka muuqday in gacan saddexaad iyo dad raba inay dadkii walaalaha wada deganaa isku diraan inay ka faa'iideysanayaan iyada laftirkeeda iyo hadalka qoraalkii uu soo saaray madaxweyne Xasan Sheekh oo uu leeyahay Soomaaliland iyo dadkii in la xasiliyo maxay kula muuqataa wallahi hadalkaas waa hadal meel waay weeye sababtoo inay madaxweyne meesha joogo oo dadkiisii ay dhimanayaan oo ciidankiisii ay dadka laynayaan ayagu muuse taa lagama rabo waxa la rabaa inaad xabadda ka jooji dadka ciidankana ka saar magaalada dadkuna u ogolow xorriyadooda iyo rabitaankooda shalay waxaad ka carartay maamul aad leedahay qabiil ahaan noo dhibaateeyay maamul aad leedahay deegaan ahaan noo dhibaateeyay dadka ka cararay buu ka mid ahaa oo ka tegay ma fahamtay taariikhna muuse bixi runtii uma leh wanaag iyo nabad iyo nin hadda lagu yaqaan ka tiriya ma aha يعني dhibaatooyin badan buu ka geeso la socotaa boorama iyo dila iyo dadka lagu laayay 1993 aad loogu laayay kasoo arrintaas aan aad looga hadlin marka haddana Hargeysa oo deefaad dadku ka dhashay laftigiisa oo dhex joogay oo reerka hoose wada ahaayeen ayay markay barnaamijyada war doorasho qabo ku darsi ma jire ayuu xabad la dhacay marka hadal uu iska yiri cid baa cid ay tahay adaa la rabaa inaad sheegtid yihiin magacaaw مسؤولية دابا شيء مسؤولية بكاس عارنة يا دير يا دات كان هذا وكان ويدي يي هو هذي مركا وحاسوا دولة الدحيح دورك دولة الدحيح دولة الدحيح أنا وحلاي هاي فيري دولة الدحيح برايورتي دورته ومسبليس أدب أو خلدني هاي سببته سومالي الآن فهمتي أنا هذا فكر كي يقوي عبد الرحمن مصر صعته ما الإيمان سوايه إن بدنا نوان شيء سببته nin hadda Soomaaliland joogo madaxweyne ka ah oo oran kara Soomaaliland ku biiranayna ma jiro nin xamar joogo oo oran kara Soomaaliland ha go'daana ma jiro marka waxa gacmo daaris weey laakiin Maxamed Xasan wuxuu u madaxweyne u yahay dadka Soomaaliyeed ee calanka buluuga haysta meel kasta jooga Sooma dadka la saana jooga calanka buluuga ay taagayeen Puntland ma taagay Soomaaliland ma taagay marka mas'uuliyadda maxaa looga gabanaya xaq inuu yahay sidii loo sheego Soomaa marka qaarkood damirku shaqeeyo weeyo la kala saaro siyaasadda iyo waxa sax ah oo markaas taagan inuu xaq sheegahay wax dhibahay madaxweyne Xasan Sheekh ku tahay ma uu jiro laakiin dabcan waa garanaya siyaasiyiin dadku siyaasiyiin tahay wax badan bay xeelinayaan بريتو عود بيرابا ما فهمت يا عود بدن يا حلبان بدن وحاسه لقى فكريه ما فهمت لكن حق يا بادل لقى هالدميه لكن waxay la tahay doorkaasi wixii hadalka saxaha wali lama oran عبد الولي marka aad fiiriso dani siyaasina baa tahay xildhibaanadii dalka Soomaaliya ee dawladda dhexe ee ka soo jeeda deegaanada ama waqooyi ama Puntland laftirkooda way hadleen waana dadkii loo laaban lahaayo wakiiladii ka ahaayo matalay dadkii deegaanada iyo maamuladii ay hadda ku tuhmayeen in labada dhinac ay isku cidhiirinayaan laftirkooda mas'uuliyadooda ma tahay mararka qaar inaad ay ka hadlayaan loo dareema in qabiil ahaan labada dhinac uga dhex muuqdaan iyagoo xildhibaan qaran oo Soomaaliyeed ah wallahi waa runta waa sax weeye laakiin marka xildhibaan waxa laga rabaa horta xildhibaanku reer buu matala waa run laakiin mararka qaarkood xildhibaan Soomaaliland waata qof islaam ah oo Soomaaliland waata mararka qaarkood reerka ka soo jeedo iyo gobolkaaga xaq waxaad ugu helin kartaa inaad xaq darada ka ilaaliso
sababta berita ayaga dib ugu soo laaban kartaa wada qabiilku difaacin qabiilku difaacdi xaqdarradu ayaga dib u soo laaban kartaa marka maanta haddaad xaqdarro taageerto berri xaqaaga ayaa la doodsiiyaya marka aniga waxay ila tahay anuu hadda kala saarsaarayno Somaliland iyo Puntland iyo Soomaaliweynta kala oranba aniga waxaaba saxayd ila saxsanba xildhibaanada kale ee Soomaaliyeed ee Somaliland midaan ka soo jeedo midna ayaa raba in halkan ka hadlaan iyagu oo ra'yigooda say tahay labada deegaan la isku fiirin labada deegaan la isku fiirin oo iyagu laftooda xildhibaano qaran oo Soomaaliyeed weeye ay ka hadlaan arrinta iyada ah marka saas oo kaanu ali laba maroodi meesha ku dagaalamaan cawska ku baabaa waa sax weey dadka hadda dhiig baxaya sool laascaano dhibaatada ay ku haysato labada maamul ee dhinacyada ku haya gacan ku haynta deegaankaas ay u wada muuqdaan sabab ma u yihiin dhibka maanta ku dhacaya yani labada maamul baa lagu la eedayn karaa dabcan sababtoo ah dadku waa dhiban yihiin qolal baan waxay claim garanaysaa in ayagu ay madax u yihiin oo dalka ay xukumaan bay claim garanayaan dadkina waa dhibaatoodeen waxyaabaha la yaab kale baa waxa kamid ah ugu daran waxaa weeye dhanka xataa keliya maaha haysashada iyo wax laga hadlayo xataa iman dhaqaalaha yani nolol ahaan dalkaasi isbedel weyn bay u baahan yihiin deegaana haray waay isbedel weyn bay u baahan yihiin laftigeedu waa dhib weyn oo jirta waaye waxyaabaha kalifi inay ka mid tahay in la yidhahdo waa la kala jiitay oo boqolo ay claim garaynayso marka laakiin hadalkii waa inta hore u yiri waxa weeye dadkaasi ayaga rabaa in masuulkooda ka tashadaan loo madax banaaneeyo kabacdina ayaga ismaamulaya waxaan isla tahay ayaga dhulkooda develop garaysanaya ayaga wax badan ka bedeli doona insha Allah